بسم الله. kadib markii aan arkay baahida isoo taraysa ee loo qabo xirfadaha dhijitaalka ah gaar ahaan digital marketingka iyo asxaab aanu ku bahoonay baraha bulshada oo qaarkood igu duduwacay inaan wuxuun quseeyo digital marketingka la wadaago ayaa waxaan u arkay inay sidani noqon doonto ilaa muddo lagu moodi karo oo baahidii wuxuun ka tari karta. digital marketingku qayb badan uu ka kooban yahay, mana gelayo hadda qaybihiisa guud ahaaneed. waxaan rajeynayaa inaan mar kale aan fiirin doono, laakiinse hadda waxaan xoogga saarayaa meesha ugu badan ay soomaalidu aadka u isticmaasho, ahna runtii qeybaha waaweyn ee digital marketingka social media. gaar ahaan waxaan rabaa inaan isla fiirino yalla idmo mawduucan horteedna ka muuqda, kaasoo ah sida xayeysiimaha lacagta ama aad gadanaysid loogu sameeyo facebooka iyo instagramka. waana si theory ah. waxaan rajeynayaa muuqaalka ka xiga inuu noqon doono si practically ah qaabka lagu sameeyo min bilow ilaa dhammaad, haddii aan la weynin inuu idmo. guud ahaan waxyaabaha isla wadaago ee ganacsiyadu ay la wadaagaan macaamiishooda way kala duwan yihiin. kuntiyadu qaybo kala duwan ay leeyihiin, laakiin dhammaantood waxaan leenahay waa bosses halkaas lasoo dhigayo. waxaa la dhihi karaa markaa bostiyadaas waa kuwo aada wanaagsan ama mid wanaagsan, ama facebook ha hata la dhigo ama instagram ama meel kale hala dhiga. waxaan ku magacaabi karnaa marka ama dadka ama macaamiisha ku xidhan ay noqdaan kuwa ka warqaba ama ku baraarugsan waxa ganacsiga dhexdiisa ka socda, haday tahay iib, events, promotions ama xogaha kale ee muhiimka u ah ganacsiga, gaar ahaan badeecadaha iyo adeegay bixinayaan. waxaan u qaybinaynaa bosseska laba qaybood, mid la yihahdo organic iyo mid la yihahdo paid. reach iyo content waa same. waxaa kaloo siin karnaa posts, waa dhihi karnaa ayana. organic waxaa la yihahdaa bostiyada asalka ah, something macnaha organic aan wax ku bixinayn, aduga lacag ma ku bixinayso, waa free. markaad pageka samaysid bostiyaad soo dhigi kartaa, markasta waad dhigi kartaa dhigi kartaa oo wax laga bixinaynin. kuwa noocaasa ee si dad badan ay u daawadaan, ama si dad badan ay u shargareeyaan, ama si dad badan ay flow iyo like u saaraan aadan lacag ugu bixinayna, waxaa loo yaqaanaa organic. waa lacag la-aan, waxayna gaadhaysaa dadka markaa pagekaas ama meeshaas, ama ha ahaato instagram ama ha ahaato meel kale ku xidhan bay gaadhaysaa. wax lacagna bixin maysid, waarta badan kala sameeyo. talabaad waxaa la yihahdaa paid, ma adigu lacag bixinaysid. viewska gadanaysaa, engagementiga aad gadanaysaa, isku wadar share like ku xidhan waad gadanaysaa. kuwa noocaas page likes followers aad gadanaysaa. kuwaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa paid content loo yaqaanaa. waxaad u gadan kartaa hadba inta lacag ay rabtid markaad u qodeysay. waxaa kaloo muhiim ah mid organic ahayd horada u abuurtay, organic ahayd ayaad waxaad awood u leedahay inaad mar labaad dib u isticmaashid, aadna ka dhigtid mid paid ah oo lacagna ku shubtid, aad dib isticmaashid iska dhigi kartaa iyadana. markaad sameynaysid facebook ama instagramka aad ku xayeysiinaysid, aad lacagta bixinaysid, yoolkaagu wuxuu yahay inaad gaadhid beyond people who have liked or engaged with your page on instagram. dadka horey macnaha pagekaaga usoo biiray ama horey engagement ula sameeyey, kuwa ka dambeeya ka baxsan aad raadinaysaa, kana tiro badan aad raadinaysaa. lacagaad bixinaysaa, lacag kuwaad haysatay lacag ku bixin maysa, waxaad lacag ku bixinaysaa inaad dad cusub aad hesho. haddaba marka adska la sameynayo ama xayeysiimaha advertisementiga digitalka la sameynayo, meel kala duwan ku samayn kartaa, platforms kala duwan lagu samayn karaa. bosses oo lagu samayn karaa automatically facebook dhexdiisa adoo jooga, business suite oo lagu dhex samayn karaa. laakiin hadda ta ugu featureska badan, abilities awoodaha badan ku siinaysa inaad waxyaabo badan aad samaysid, ads manager ayaa la yidhaahdaa. marka waxaan arkaynaa set upkeeda qaabka loo sameeyo the next video insha allah practically. laakiin hadda waxaa muhiim inaan ku ogaano intaanaan samayn ka hor. ads manager guud ahaan waxaa la yihahdaa waa tool kaasoo loo design gareeyey inuu adigu siiyo awood buuxda aad controlshid xayeysiimaha lacagta aad gadanaysid, kuwa soconaya iyo kuwa marka aad rabtid socodsiisid. waad ku socodsiin kartaa, waad ku abuuri kartaa, waxaad kala socon kartaa kuwa soconaya. waxay leedahay format
and the audiences they reach iyo audienciga ama dadka target kuwa dhageystayaasha markaas aad inaad gaarsiisid taba waa leedahay waxay kaloo ku oggolaanaysaa inaad aad scheduling samaysid inaad ku jadwalaysid adhiska ama xayeysiinta xilliga ay soconayso iyo budgetingka aad ku samaysid lacagta intay la eg tahay iyo weliba xilliga laga goosanayo lacagta ama lacagta aad bixinaysid intaba awooda kuu samaynaysaa ama kuu siinaysaa waxaa kaloo meesha ku jira ads manager interface connected to your Facebook account markaad soo gashidba automatically wuxuu ku xidhan yahay Facebook accountkaaga profileka ah ayuu ku xidhan yahay idan baad dee hodhow gudaha usii gelisid markaas pageki ay rabtay inaad haysatin u samaysid aad gudaha usii gasho arki doontaa idan ama hadduu yahayna new Facebook experience page hadduu yahayna oo markaa isaga aad ku jirtay isagu toos ugu xidhan yahay oo interface aad arki doontaa haddii profileka adoo jooga adyada gashidna interface automatically waxaa arki doontaa profilekaaga ereyada kale muhiimka waxaa kamid ah campaign waa la garanaya olole wuxuu kooban yahay adsets iyo ads labadaba hoos ka arki doonaa haddii la haydmo taasoo ujeedadu ay tahay in ujeedo keli ah la gaadho sida inaad leads badan aad heshid inaad siyaasid number of apps haddaad application leedahay ganacsigaagu inta qof installment samaynaysa soo install garaysanaysa aadna beedisid waa objective inaad samaysid post engagement waa objective inaad samaysid page followers waa objective macnaha waa campaigns markaas wey dhammaantood waxa la yihahdo waa campaign objective ujeedada ama hadafka aad ka leedahay campaignkasna waa muhiim waa which results matter to you maxaa ku muhiima maxaa rabtaa inaad heshid ma page rabtaa inaad heshid post engagement ma view ma how many things rabtaa inaad heshid macnaha kee which objective which result campaign markuu dhammaado maxaa rabtaa inaad heshid marka waa dooranaysaa iyadan cafan waa dooranaysaa marka kaas waxaa loo yaqaanaa campaign objective ayaa la yihahdaa waxaa la yihahdo campaign structure waana meelaha ugu muhiimsan ads create in Facebook ads managerka lagu sameeyo xayeysiimaha lagu sameeyo ads managerka waxay ka kooban yihiin 3 levels level koowaad waxaa loo yaqaanaa waa campaign ka labaad waxaa la yihahdaa adset ka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa ads saddexdaas waxaa loo yaqaanaa waxa la yihahdo campaign structure campaign level muxuu yahay campaign levelku waa the first level of campaign structure ka koobaad waana meesha objectiveka aad leedahay aad ka dooranaysid or what you want to add to accomplish ama xayeysiintaada waxay rabto inay qabato maxay tahay meesha ka dooranaysid ee koobaad waxaa loo yaqaanaa campaign level meesha labaad waxaa la yihahdaa waa adset level waa ka labaad campaign structure markaan joogno waa ka labaad waa meesha laga doorto audienciga dadkaa rabtid agekooda meeshay joogaan waxay xiiseeyaan meesha ka dooranaysid wey iyo your ad schedule xilliga aad rabtid haysata inaad socoto bilow ilaa dhammaad maalmaha saacadaha ayaad dooran kartaa iyo waxa kaloo muhiima iyadoo halkan ku jira where your ad appear and how much you will pay iyo meelaha xayeysiimaha kasoo muuqanayaan history Facebook feed Instagram feed halkee meelaha kasoo muuqanaya ina waa qayb kale oo muhiima waxaa kaloo ku jirta oo qaybta ugu dambeysa qaybta loo yaqaano ad level halkan waxaad ku sheegaysaa horta waa campaign structurekaas saddexaad waana meeshaad ku qeexaysid waxa aad xayeysiinta ku samaysid wuxuu yahay ama xayeysiinta aad samaynaysid maxaa kasoo muuqanaya maxay tahay tii hore waxayd halkee kasoo muuqanaysaa kana waxa weeye maxaa soo muuqanaya photos video copy links ct waxaa la yihahdaa call to action dhammaan waxbaa kasoo muuqanaya xayeysiinta aad samayn doontid meesha aad ka upgradeaysa waxaa loo yaqaanaa ad level ayaa la yihahdaa soo la soco qaybta labaad intaan kusoo gabagabeynayna intan waa theory kooban wixii aan khalday asxaabtu waa sixi karaan wixii kalena waa idin hibeeyey aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum